waxaan caawa casharkeena ku eegaynaa some Linux basic commands. marka waxaan eegaynaa waxaan soo keenaynaa operating systemkeena Ubuntu sidoo kale halkan waxaan joognaa terminalkeeni marka waxaan eegaynaa common basic commands-ka ugu isticmaalka badan ee had iyo jeer muhiimka ee laga maarmaanka u ah isticmaalida Ubuntu ama Linux guud ahaan. marka waxaan qoraynaa bal marka koowaad waxaan eegaynaa maanta dhawaan soo sheegnay who am I wax la yiraahdo oo ku sheegaya qofka isticmaalaya computerka. waxaan kala soo aragnay sida loo sameeyo text file loogu sameeyo iyadoo isticmaalaya terminalka. waxaan kala soo aragnay sida loo sameeyo directory. marka waxaan caaw eegaynaa bal kuwa ugu isticmaalka badan iyaguna ee muhiimka ah. waxa kamid ah kadaan doona version-kan aanu isticmaalayno ka aynu doonaa inaynu eegno si aanu ogaano version-kan isticmaalayno imika waxaan qoraynaa code-ka yar ayaynu ku qoraynaa terminalka. waxaan leenahay lsb_release waxaan leenahay -a saad u jeedidba waxaa soo baxay waxaan isticmaalayno Ubuntu 16.04 oo ah Ubuntu aynu isticmaalayno. halkan sare waad aragtaa waxaa ku qoran waa sharaxaad guud waxaan naga siinayaa version-ka aanu isticmaalayna waxa uu yahay code-kan Linux standard base ayay u taagan tahay lsb-daas. good intaa wasla garanay casharadii ka horreeyay waxaan kusoo sheegnay in environment-ka aanu isticmaalaynaa environment-ka guud ahaan aanu isticmaalaynaa ama desktop-ka aanu isticmaalaynaa Ubuntu uu yahay Unity. marka balse wax xaqiijino inuu Unity yahay in kale waxaan ku qoraynaa ayar halkan echo soo saara dana capital baynu ka dhiganaa. waxaan leenahay xdg_current_desktop saad jeedid waxaa soo baxay Unity. code-kan aynu weydiinay ee ku qornay terminalka ee noo sheegay inuu yahay Unity. desktop-kan current desktop waa Unity. haddii aynu ka gudubno intaas waxa kale oo aynu eegaynaa si aad u ogaatid IP address-ka computerkaaga IP address show ama dhamaystir ama dhamaystirin waad dhamaystiri kartaa halkan IP address ss halka waad ka dhigi kartaa show ama waad soo gagan kartaa IP addr haddaad qorto waad ka boodi kartaa showna waad oran kartaa saa ku dhamaystiray. marka IP address-ka imika isticmaalayna waxa weeye halkan aynu ka eegaynaa IP address-ka isticmaalno waa kan aynu isticmaalayna 192.168.33.134 baynu isticmaalaynaa. si kale waad u ogaan kartaa iyadana halkan waxaad ku qori kartaa if config oo no space haddaad ku qorto iyadana sidoo kale wuu kuu sheegaya iyadana halkan ayuu ku qoran yahay IP address-keeni waa kan sidoo kale if config haddaad isticmaashana sidoo kale waad ogaan kartaa IP address-ka aad isticmaalaysid ka uu yahay. haddaad rabtid inaad ogaatid inta ka bannaan space ka bannaan hard disk-ka computerkaaga waxaad ku qoraysaa ayar disk free dana -ah baad leedahay dana enter baad leedahay. waad ujeedaa computerkaaga inta ka bannaan free space-kiisa halkan ayaad ka eegaysaa tan kor u baxo waa kan disk free diskiga inta free ka ah computerkaaga free space-kiisa halkan aad ka kartaa. sidoo kale haddaad doonaysid computerkaaga inta la isticmaalay imika waxaanu eegaynay disk free waxa ka bannaan inta la isticmaalay ee megabyte ahaan loo isticmaalay. haddaad doonaysid inaad ogaatid waxaad leedahay du oo disk usage u taagan -sh intaas kaliya ayaanu isticmaalay computerkeena ka isticmaalay imika hard disk-geena. haddaad doonaysid inaad ogaatid CPU running-ka process-yada ugu badan CPU-gaagu run garaynayo ama CPU-gu u shaqeynayo ama running-ka CPU-gu inuu overloaded yahay oo process badan kacsan yihiin kale waxaad qoraysaa ayar top ayaad halka ku qoraysaa. top markaad qortid wuxuu kuu sheegayaa CPU-gaagu xarakad walba uu sameynayo inta uu marayo percentage-ka process-ka kacsan ee shaqeynaya halkan automatically way isbedelayaan markastoo computerku uu shaqeynayo CPU-gu running ku jira. marka cursor-ka ayaan saa u riixayo dartii shaqo iyo computer ku jira that means waa halka iska bedelaya marba aad u jeedid percentage-ka CPU-ga shaqeynaya.
saad uga noqotid ayar waxaad taabataa q haddaynu eegno isagana commands kale oo muhiima oo loo yaqaano manual haddaad manual saan maan u qorto manual hadda jeer waxaa loo isticmaalaa commandska aadan garanayn miciisa inaad sharxaad badan faahfaahin badan ka heshid ayaa loo isticmaalaa in lagu eego lagu sharxo marka waxaad leedahay manual ama man baad usoo gaabinaysaa loo soo gaabiyaa deedna waxaa leedahay marka sudo super user do oo kale maxay tahay wuu ku sharxaya waa kan wuu ku sheegayaa super user do waxay samaysaa executes commands as another user ama super user ahaan bay u execute garaysaa ama u run garaysaa commandska wuxuu kule ku sharaxayaa wax allaale waxa ay raaci karto xagga dambe ka raaci karaa sudo haddaan enter si idhaahdo markasta waa sii wad oo waa sii akhri halkan waad ortaa manual pages for sudo waa 8 pages waad sii wadi kartaa waad sii akhri kartaa faahfaahin fara badan buu ku sheegaya marka commandska aad fahmi weydaan hadda jeer waxay yihiin manual baad ka horreysiinaysaa ayar deedna command name baad qoraysaa marka wuxuu ku sheegayaa commandisku waxa uu yahay ayuu ku sharaxayaa ku sheegaya wax allaale wixii uu qaadan karo waxaan filayaa casharka inaad si fiican fahanteen casharka mid intaas ku arki doono waxaad kaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu